So cashirkan waa placementka marka waxa waaye waa qaybta oo aad rabtid in xayisiintii markii aad rabtid in la arko meesha laga arki lahay. Marka haddii automatic aad aadid oo kale meelo badan ayaa laga arki karaa oo ay kamid tahay marketplace, Facebook marketplace, oo ay kamid tahay Instagram, oo ay kamid tahay meelo badan laga arki karaa haddii automatic aad dalbatid. So marka waxaa laga yaabaa in video hadduu yahay videogaas oo 15 second oo ka badan oo kale inuuna macnaha meelo qaar oona kasoo bixin markii aad automatic dalbatid. Marka placement sida aniga aan ka dhigto haddii aan rabo in macnaha aan sameeyo page lag oo kale iyo haddii aan rabo inaan sameeyo conversion oo in qof oo emailkiisa iyo informationkiisa iisoo diro macnaha waa isku mid maaha. Automatigu mar uu shaqeeya jirto 100% uu fiican yahay inaad samaysatid si fiican oo sharaxi doonaa. Placementkuna mar waxaa jirto ay macnaha automatic una fiicnin oo manual inaad ka dhigatid ay fiican tahay. Marka manual marka aadid meeshan macnaha waxa waa meeshii oo dadku ay ka arki lahaayeen waxa aad xayisiinaysid waa macnaha placement. haddii meeshay ka arki lahaayeen waa macnaha Facebook ay ka wada arkayaan laakiin Facebook wuxuu u kala baxaa meelo badan oo wax laga arki karo. iskuma soo qaad apps ko kale waxa laga arki karaa haddii noqoto e-sheg marketplace ko kale xayisiinta laga arki karaa. haddii aad macnaha video adoo Facebook ku jiro oo kale aad fiirsanaysid oo kale adoo video fiirsanayo ay xayisiin adiga aad soo samayso 15 second care iyo haddii jirto oo kale xayisiin ord ku soo galayso oo kale waa placement. meeshan waa meesha macnaha waxa soo dhan laga sameyn karo. So marka placementku haddii aad macnaha aad sameynaysid oo kale manual oo macnaha ka wado hadda sida anaga aan rabno oo kale waxaan rabnaa anaga inaan u dirno dadka inaan usoo dirno meeshan e-sheg inay noo soo diraan informationkooda. So maadaama aan rabno informationkooda inay noo soo diraan oo kale anigu hadda oo kale waxaan sameynaa marka manual aan leeyahay because ma rabo in marketplace iyo meelahaas laga arko. So marka manual tiraahid Facebook markaas wuxuu ku leeyahay okay deviceska markaas ku weydiinaa deviceska marka haddii aad ku dhufatid waxaad dhehaysaa oo kale kaba soo qaad. haddii laakiin automatic ay joogto waxaa laga yaabaa inaadan arkin oo macnaha deviceska una dhibaataynin. deviceskuna marka macnaha waa mobilada. So haddii aad rabtid oo kale mobileka qofka uu markaas wato oo aan rabin all devices oo kale waxaad leedahay oo kale mobile bis aan rabaa desktopka ka saaraya. haddii aad rabtidna macnaha in laga arko desktopka ku dhaafay. So ani markii aan sameynayo ani ma kala saaro labadan isku kay mid waa qofku meesha rabo laga arko inuu arko le muhiim ama telefoon ay arko ama computer ama laptop ay arko it doesn't matter. laakiin meesha aan rabo oo aniga aan rabo in laga arkin ama lagu arko waa meeshan oo macnaha placement manual markaan dhaho meelahan waay. So marka meeshan hadda waxa waa platformka waxay tahay waa Facebook iyo audience network iyo Instagram iyo Messenger. So marka sida aniga samaysto haddaan ka bilaawno aniga waxaan ka saaraa kan off aan dhahaa audience-kan iyo Messenger-ka labadaba waa ka saaraa. So marka labadaas aan saaro waxaan soo reebaa Facebook iyo Instagram. So marka hadda Facebook marka haddana waxa uu sii kala baxaa wuxuu leeyahay Facebook feed, Instagram feed, Facebook marketplace iyo Facebook video feed. So video feedskan oo kale aniga badanaa macnaha haddii 15 second iyo okeriya kale badanaa qofka markuu video fiirsanayo xayisiin soo gasho ana xataa marka ana video fiirsanayo xayisiin soo gasho I don't pay attention to the xayisiin because videos markaas aan fiirsanayo ayaa wuxuu yahay video aan ku haysto xayisiintaas waaba dhibsaa macnaha ma fahamta. marka si aan u samaysto haddii tahay labadan waan ku dhaafaa kan oo kale waa ka saaraa kan waa ka saaraa naftigiisa sometimes waan ku dhaafaa daatada hadday ii sheegtay inuu macnaha uu shidan yahay waa iskaga dhaaftaa laakiin kanna waa ka saaraa waxaan dhan waa ka saaraa all of them waa ka saaraa Instagram kan kulli ka saar all of them. marka xayisiinta aan sameynayna ay arki doontaa Instagram stories naftiisa waa socodsiiyaa Facebook stories kulli laba bisan ku dhaafaa markii aan rabo in aan macnaha conversion xayisiin aan sameynayo kale kan waa kasii saaraa ka saar kulligood out. waxaan soo reebtay bis Instagram feed iyo Facebook feed. So Instagram feed waa taqaanaa qof markuu Instagram ku joogo
oo macnaha kor iyo hoos u socdo aan rabaa in meesha laga arko inaan guri iyo wax dhisayno wax jijibinayno meeshaas in laga arko. marka Facebook feed ka ladhahana is the same, macnaha waa Facebook feed. marka labadaas ayaa waxay tahay 99% labada oo ugu conversionka badan. inta kale waxaa waa un bis hayaacda waaye. haddii aad macnaha aad samaynaysid waxay ku xiran tahay objectivekaaga ama hadafkaaga ama ujeedadaada oo campaignka aad kasoo gaartay ku xiran tahay. haddii campaignka aad kasoo gaartay inaad samaysid post engagement iyo marka la sharaxayna iyo page likes iyo macnaha casharkan hadda waxaa ku saabsan yahay leads aan raadinayna macnaha meeshaan waxaan ka raadinaynaa isheeg website-kana waxaan ku raadinaynaa in nagala soo wacdo. so marka labadaasaan ku dhaafaynaa, saasaan ku dhaafaynaa, meeshaasaan uga tegaynaa. deviceskana macnaha waxaa waaye inaad macnaha haddii aad rabtid in macnaha all devices haddii aad rabtid sidaada ku dhaafay, haddii aad rabtid inaad specific ahatid oo mobileka dadka wata bis ay kusoo raadsadaanna meeshaas ayaa ku dhaafaysaa. so meeshaan hadda oo macnaha all deviceska isku meshi leh waa macnaha haddii aad meesha koro aad macnaha aad placementiga aad ku dhaafto haddana deviceskan oo Facebook weydiina oo xayisiintaada meesha laga arkaayo macnaha isku meshi macnaha ma dhihi kartid isku meshi waa, laakiin kaasu macnaha waa Facebookgaasi waxaas deviceska ku xirantaa, laakiin kan waa rootki oo macnaha campaignkaga ku xirantaa deviceskanu macnaha campaignkaga xaggeed rabtaa in laga arko marka. so campaignkiga ani all deviceskan ku dhaafaa waxaan masii kala saaro, so never ma kala saarin wax difference u dhexeeysa male. kan oo kale waxa waaye only marka qofka oo telefoonkiisa ugu dhagan yahay wifi oo kale bis xayisiinteeda tus, mar kale ha tusin waxaas mu baahni sideeda ku dhaaf. so marka haddii placement meeshaas uga dhaafno casharka ku xiga aan quickly sii galno qaybta dambe markii la gaaro meeshaan aan ku dhaafayna hadda casharkan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.